muddo badan ciidamada Soomaaliland ka dhaxtalayeen magaalada dhexdeeda habeenkii kana qaadiyeen cashuuro kala duwan iyo dad fara badan ay ku laayeen magaalada kuwaas oo kama dambeystii oo shacabka ka gadoodeen bilowgiina ahaa kacdoonka koowaad ee dhalinyartu ay bilaabeen iminka magaalada Laascaanood waa nabad waxaana ka shaqeynaya ciidamada xasiliinta ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn habeen dhaweytu waxay soo saareen awaamir lagu sheegayo dadka in sagaalka wixii ka dambeeya aan furnaan karin meherad magaalada dhexdeeda ku taala sida qamriga iyo xashiishada ciidamada xaqudurka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kana shaqeynaya magaalada dhexdeeda ayaa kala qaadanaya fariimaha kala duwan ee lagu sugayo amniga kuwaas oo meesha laga saarayo mukhadaraadka sida khamriga iyo wixii la halmaala taliye gowrac oo loo xilsaaray arrinkaas ayaa gudanaya waajibaadyo kala duwan oo marba mar ka dambeysay uu si laba jibaarayo sidoo kale jamaahiirta oo garbihiisa taagan ayaa ka shaqeynaya magaalada Laascaanood oo khasaare laxaad iyo burbur xoog la soo geystay hadda waxa uu muuqataa mid ka soo kaban doonta dhibaatooyinka faraha badan ee loo geystay waana caasimadda maamulka Khaatumo waa Kawte Laascaanood